Qisadan waxa ay ku socotaa wiil walba oo damiir leh. Sidoo kale qisadan waxa ay sheegaysaa oo ay cabiraysaa xiriirka jacaylka ee quruxda badan ee qofka markuu ku aamino iyo kalsoonida heerka uu ka gaarsiiyo adiga oo dareemi karo qof dhan oo bini'aadam ah in naftiisa uu kugu aamino kadib aad ka dhigto wax macmal ah ama wax aan jirin kadibna mustaqbalkiisii halkaas aad ku dhaafiso. Qisadaas ayaan idiin soo gudbi doonaa. waa hubaal ilaa ay dhammaadka qisadaas haddii aad nala joogtid wax badan inaad ka faa'iidi doontid. waxaana ka daawanaysiin barta YouTube-ka ku leenahay Socdaal 24 iyo aaladdeena TikTok iyo aaladdeena Facebook. waxayna ku bilaabanaysaa qisada sida tan. wiil iyo gabar ayaa waxaa ka dhaxeeyay xiriir jacayl oo qurux badan. gabadhu wiilka aad ayay u aamintay markay aragtay hadalladiisa macaan ee dabciga quruxda badan ee ku jiraan. mar walba wiilku waxaa u sawirnaa sidii gabadhaas mustaqbalkeeda uu ugu dheeli lahaa. sidoo kale waxaa u sawirnaa guud ahaanba inuu dhaafiyo sharafteeda iyo mustaqbalka rajada ee ka leedahay. mar walba wiilku waxa uu isku dayi jiray gabadha inuu ballamiyo oo waqti uu la qaato. sidoo kale wuxuu isku dayi jiray gabadha inay ugu imaado guriga wiilku uu degan yahay. inkastoo gabadhu ay ahayd gabar dhoorsan, haddana mar walba waa ay ka diidi jirtay, mararka qaarna waa ay u been guuri jirtay. gabadhu sidoo kale mar walba waxay ahayd gabar aad u fakarto, waxayna isweydii jirtay haddii ninkan aa ugu tagtid meel cidlo ah maxaad kala soo kulmi doontaa, muxuu kugu samayn doonaa, xaalkaadu sidoo noqon doonaa. waxaa tahay gabar sharaf badan, reerkaadu sidee xaalkoodu noqon doonaa, magacaada ma sii jiri doonaa, iyo su'aalo badan ayay gabadhu isweydiisay. maalinkii dambe inkastoo hadalku uu iska sii watay, ninkaana go'aankiisa uu ahaa gabadhaas mar qura inuu qabto mustaqbalkeedana uu dhaafiyo. alla damiir xumaa miyaysan ogeyn in gabar la dhalatay sidoo kale uu dhali doono, sidoo kalena hooyadiisa ay tahay. intaasoo su'aalood qalbigiisa muusan soo gelin. maalinkii dambe hadal suugaaneed, hadal murtiyeed, ammaan wax walbuu adeegsado gabadhii waa ay soo jilicday. kadibna gabadhii waxay ka aqbashay ninkii gurigiisa inay ugu imaado. aad ayuu u farxay markii arrinkaas uu ogaaday, wuxuuna gabadhii ballamiyey saacaddu markay tahay 11 galabnimo. wuxuuna u sheegay guriga qof aan asaga ahayn inuusan joogin oo guriga cidlo uu yahay. gabadhu way iska aamintay, laakiin qalbi ku xidhan Allah iyo qof walba oo dhoorsan way adag tahay mar qura in lagu dheelo ama mar qura sharaftiisa in lagu ciyaaro. gabadhu oo sidaas oo ah ninkina aad u faraxsan yahay ayaa waxaa dhacday in hooyadiis ninkii dhowr mar ay soo wacdo, asagana oo taleefanka ka qab waayey. wiilka gabadha ballansada kadib waxa uu sameeyey in gabadhii saaxiibadiisa uu ballamiyo oo dhahay gabar ayaa noo soo socoto, isoo diyaariya, waan ku baashaali doonaa. 4 wiil iyo ka badan ayuu u diyaariyey, halka asigana uu diyaar ahay. xaaladdu markay sidaas ahayd ayuu arrinku si kale isku beddelay. waxyaabaha mararka qaarna dhacane waxa ay yihiin mucjiso. adiguna waad dareemi kartaa haddii maanta aad nooshahay inaad caawa gaaraysid ma qiyaasi kartid. waxaa dhacday wiilkii hooyadiis dhowr mar inay soo wacdo. taleefanka ayuu ku dhegaystay. siduu ugu dhegaysanayay markii dambe ayuu ka qabtay. hooyadiis markuu ka qabtay ayuu si qeelo ah ula hadlay. markaas ayay hooyadii dhahday, waryaa taleefanka maxaad maanta nin igu dhegaysanaysay? markaas ayuu dhahay, hooyo waan mashquulsanaay. markaas kadib ayuu hooyadii waxay dhahday, waryaa aabbaha qalliin ayuu geli rabaa ee hadda imaaw. markii aabbaha qalliin uu geli rabaa lahay ayuu madaxa sii xanuunay. baabuurkii guriga yaalay ayuu soo watay. inta uusan baabuurka soo wadin ayuuna dhahay wiilashii uu ballamiyey, qoftu waa ay soo socotaa, wayna soo dhowdahay ee lafaha u laaba oo ku baashaala ayuu dhahay.
xaaladdu markay sidaas ahayd ninkii baabuurka ayuu soo watay sida waxwaalan oo kale asigoo u wado siduu u soo socday isbitaalka ayuu imaaday. Isbitaalkii markuu imaaday hooyadiis ayaana waxay weydiisay aawo waryaa walaasha adiga ayaa kuu soo diray oo guriga ayay kaa soo doonta ayaa la dhahay. aad ayuu u naxay hadalkaasna uur ku taalo ayuu ku noqday wuxuuna ogaaday ballankii iyo dardaarankii uu soo siiyey dhallinyaradii. isaga oo dheg la qabto lahayn ayuu mar kale wuxuu sameeyey gaarigii inuu u soo wado sidii wax waalan oo kale. markii gaarigii uu soo waday uu ku soo noqday goobtii wuxuu imaaday walaashiis oo qaawan oo dhulka iska jiifto oo lagu baashaalo ayuu guriga imaaday. saaxiibadiis asaga ayaa dhahay gabadha imaanaysa ku baashaala. walaashiisna sidaas ayaa loogu baashaalay. gabadhii falkan lala damacsanaay leh maysan imaan oo waa ay maqneed oo gabadha gurigeeda ayay iska joogtay. xaaladdu sidaas ayuu ugu cakirmatay. nuxurka iyo qisadan waxaa ka baranayna ayaa waxay tahay wax aadan walaashaa la rabin qof kale oo bila'aadan ah ha ku sameyn. xumaantii uu la rabay gabadhaas kale ayaa waxaa ku dhacday walaashiis. waxayna qisadan ka turjumaysaa walaasha, xaaskaada iyo hooyada wax aadan la rabin qof kale oo bila'aadan ah ha ku sameyn. sababtoo ah berri gabar ayaad dhali doontaa, waad u dhixi doontaa, wayna ku dhashay. qisadan intaan ku kulmi doono qiso nuuceeda oo kale ah waa saaxiibkii mahad socdaal oo idin leh sidaas iyo ammaane allah. waxaana noo ballanah barteena youtube-ka inaad noogu soo gudbi doontid qisooyinka noocan oo kale ah. sidoo kale saaxiibadaa sheer oo dheh si aa u helno saaxiibada oo kale ah.